kulan wacan wanaagsan idil ahaantiin baa meel walba joogtaan iyo si walba is arag maqalkeena idiin soo gaadhay ee ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah duqeymo xooggan oo laga dareemayo magaalada Padame iyo sidoo kale magaalada Rama oo ku yaala deegaanka Tigreega waxaana halkaasi isku adeegsanayaan labada dhinac waa dhinaca Eritrea iyo dhinaca Tigreega hubka noocyadiisa kala duwan ayadoo maalmihii ugu dambeysay halkaasi ay ka taagneed dhilo colaadeed waxaa sidoo kale dagaalo xooggan ay ka socdaan deegaanka Oromada ayadoo ciidamadii dawladda federaalka Ethiopia halkaasi lagu sii daabulayay isbuucyadii dhaweeytaba ay haatan dagaal si toos ah ay u bilaabeen dhanka kalena magaalada Gondar ayaa laga soo sheegayaa ayagana dagaalo xooggan kuwaasi oo ay wadaan wali kooxdii dhibaatada u geysanaysay muslimiinta ku dhaqan deegaanka Gondar ugu dambeyntiina degmada Barxaale ee deegaanka Canfarta ayaa laga sheegayaa xasuuqii ugu badnaa abid ayadoo ciidamada dawladda deegaanka Canfarta iyo sidoo kale ciidamada xooga TPLF halkaasi ay dagaalo xooggan ku dhaxmareen waxaana halkaasi gacan ku haynteeda isbuucyadii ugu dambeysay hayay ciidamada xooga TPLF waxaana laga soo sheegayaa xasuuq ba'an oo loo geystay dadka deegaanka oo raydka u badan waxaana dawladda federaalka Ethiopia ay sheegtay ama ay ku tilmaantay xasuuqaasi mid aan la iskaga dabahari doonin dhanka kalena Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ayaa booqday goobta ay ka dhici doonto hadal jeedinta musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana gudoomiyaha iyo sidoo kale wafdiga uu watay oo ka kala socdo ATMIS iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay gebi ahaanba halkaasi booqashadoodu ay si nabada ugu soo dhamaatay waxaana la filayaa hadal jeedinta inay bilaaban doonto taariikh 12 ilaa 13 dawadayaal qodobadaasi ayaanu halkan ku faahfaahin doonaa barnaamijka waxa ugu heliya saaxiibkaysan taag oo alaaba aan wada falaqayno wararka caalamka iyo sidoo kale kuwa geeska Afrika balse intaas ka hor haday tahay markaad kugu horeysay barteena YouTube-ka aad soo boqotay channelka subscribe san oo gaarsiin asxaabtaada kale hadii aad horey nool joogtayna daawashadaada halkaas ka sii santaag sad aan la wada soconayba deegaanka Tigreega iyo sidoo kale dawladda Eritrea waxa ka dhaxay dhilo colaadeed oo salka ku hayso dagaalkii Ethiopia ka socday ilaa iyo 18 bilood in ka badan ayaa waxa la sheegayaa in ciidamada Eritrea ay gudaha u soo galeen deegaanka Tigreega halkaasina ay ka afduubteen dad iskugu jira rayd iyo sidoo kale ciidamo haatan magaalada Padama oo ah ama dadka Soomaalidu ay aad u yaqaanaan oo magaalo caan ah ayaa waxa lala egtay duqeymo aan kala joogsi lahayn ayadiyo magaalada Rama maxaa u dambeeyay duqeyntana maxay salka ku haysaa waxaan oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay ummadda Soomaaliyeed way mahadsan tahay markaan barnaamijku hadaan u guda galo Ethiopia waxa ka socda dagaal ma aha waxa weeye haalukeyn iyo isdhamayn isbaabiin dagaal ma aha waxa ka socdo waa wax dagaal ka weyn oo qowmiyadda kale cidii ka soo jeedo oo ay aragto ay xasuuqayso oo ay dhamaynayso sawiraanta iyo waxyaabaha dhacdooyinka efantiga xaqiiqada ah ee la soo dhigahayo ee la soo saarahayo maalmihii ugu dambeysay waa wax bini'aadamku uu ka xumaado oo aan la fiirin karin way deegaano waxaa jiray ay amxaaradu hadda gacanta ku hayso Tigreegana horay ay u maamulahayeen intii Tigreegu ay ka talinayeen lagu beeray dad Tigree ah horayna la sheegay inay lahaayeen qowmiyadda axmaarada oo hadda dagaalka intii lagu jiray Tigreega gacanta lagu dhigay baa jira deegaanadaasi hadda wali waxa badankooda gacanta ku haya ciidamada liyu booliska waxa ka dhacay hay'adda xuquuqul insaanka ay aragtay la soo bandhigay waa wax bini'aadanimada ka baxsan bay ahayd dad 400 oo intii la qabtay oo qaarkood silsiladii sida ugu xiran tahay oo xabadi ku oolin oo intii ayagoo nool meel la dhigo xabaasha saar carrada dusha looga rido oo cagaf lagu dalbado maartay carrada ku rogto waa wax caalamka aan ka dhicin weeye oo maaragtay bini'aadanimada ka baxsan waxa sidoo kale tawcano su'aasha meesha adiga weydiisay hadaan toos u abaaro magaalada Padama iyo magaaladan la yiraahdo Rama waa magaalooyin horta dagaal marti gelinayay 30kii sano ama 40kii sano ee ugu dambeeyay waa magaaladii Soomaali badan ay ku dhamaatay in la og yahay mooyeene 1997 ciidamadii la qoray ee Soomaalida u badnaa ee loo bixiyay Padama magaaladii waxa weeye dagaalku ka socday ee lagu dagaalamayay ee ay ku dagaalamayeen Ethiopia oo hal dhinac ah iyo Eritrea ciidamada Eritrea waa ciidamada Eritrea meeshii lagu baabiyay Soomaaliduna sidoo kale ay ku baabacday weeye waa deegaan ay sheegan jirtay Eritrea ay sheegan jirtay TPLF-na ay gacanta ku hayn jirtay weeye oo maartay iyadana ay sheeganaysay waa deegaan dagaal marti gelinayay oo dhibaato badan ay ka socotay intii marka laga saaray ama la dagaalamay TPLF
waxaa ciidamada waxaa gacanta ku qabtay ciidamada Eritrea ayaa gacanta ku qabtay oo haya deegaanadaasi waxaa ka socda 4 maalmood oo hadda isxiriir ah xasuuq iyo qarxin iyo waxa la yiraahdo duqeyn oo diyaaradaha androniska oo diyaaradaha duuliyaha lahayn ay ka sameynayaan meeshaasi waxaa la sheegay in ka badan 150 qof 4 maalmood ugu dambeysay inay ku dhinteen xaqiiqana looma hayo inay tiradu inta ka badan tahay ayaa dhici karta sababtoo ah baa la yiri waxa ka dhacaya waa qiyaamo ma aha dagaal caadi ah ma aha waa mid la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan diyaaradaha duuliyaha lahayn gantalada ruutada dheer iyo waartay nin walba wixii uu hayay ee awooda uu haysay la isku adeegsaday way aan ka dhaxgalay Santiago magaaladani waa deegaanadii dabcan Abiy Ahmed markuu isbedelka uu ku imaaday uu u gooyay inay Eritrea leehanayso maxaa ku soo aadiyay xilligan in xooga TPLF iyo Eritrea halkaas ay ku dagaalamaan ayagoo Eritrea xooga TPLF ay ayagana dhaqdhaqaaq xoogan ay ka wadaan deegaanka Axmaarada Tigreegu maxaa way ciidamada inta dhan afarta garshe gobolkan yarka ay u qaybiyeen haddana ay dagaalka halkaas kala jiraan ciidamada Tigreegu waa ciidamo ay midaysan yihiin iyaga iyo shacabkooda 12 jirka Tigreega qori ayuu wataa gabadha qori ayuu wataa naagta habarta la qabo qori ayay wadataa looma kala harin odayaasha ayaa horkacaya Tigreegu waa dad midaysan oo muslimkooda iyo gaalkoodaba midaysan weeye low muslimkooduba uu yar yahay hase ahaatee Tigreegu wixii sheegto dhan baa midaysan gabadh iyo wiil waxay dhashayba marka way ku filan yihiin baa la dhihi karaa dagaalada dhinacyada ay ka wadaan iyo isballaarintoodu habase ahaatee Eritrea hadda kuwan ay kula jiraan waa ku ka duwan dagaalka Ethiopia ay la gashay sababtoo ah Eritrea markii hore waxay ku eedeysay TPLF ciidamada TPLF waxay eedeeyeen dusha uga tuureen Eritrea in ay dagaalkii Ethiopia ay ku soo qaadeen Ethiopia ayada ka dhaxeeyay ay garab siisay oo ciidamada militariga dalka Ethiopia ay garab u hayeen dagaalkan marka mid hadda qabobayo umeeka TPLF na taa ka dhulo ayada ay leedahay ka hadhay mayso oo waxa lagu tilmaamaa dad go'aan adag oo aan waxmana ka hadhin weeyaan waxba ka goyn weeyaan okay maxaa u dambeeyay ayagana dagaaladii ka socday deegaanka Oromada waxaa jiray ciidamo aad u tiro badan oo lagu qiyaasay in ka badan 80,000 oo askari oo laga kala keenay daafaha dalka Ethiopia oo ay isku jiraan ciidamada dawladda federaalka Ethiopia iyo sidoo kale ciidamada dawladdeegaanada oo ay ugu horeeyaan dawladdeegaanka Soomaalida iyo Sidama waxaana la sheegay halkaas in dagaalo xoogan haatan ay ka socdaan dagaaladaasi maxaa u dambeeyay ururka OLA haatan ma u egyahay mid awoodiisa la maquunin karo dawladda ay gacanta ku dhigi karto horta markii la fiiriyo oo la dhaho on alif iyo markii la dhahan ka wada jabhadda xoreynta Oromia OLA iyo markii la dhaho TPLF oo haddaan muuqaalkeena qaybta hore kaga sheekeynay dagaal waxa laga sheekeyn karaa TPLF ayaa laga sheekeyn karaa Oromadu ma laha wadne iyo xeelad dagaal toona ma laha waa dad 200 sano madaxa looga taagnaa la leeynayay dusha looga taagnaa waad ogeyd 97kii onag waxay ahayd awoodda ugu badan dalka Ethiopia ayay ahayd ilaa 2000kii ilaa 2004kii awal xagee aaday waxa weeye 4 wiil oo Soomaali ah oo Ethiopiaanku ay qorteen baa intay meel u istaagaan oo u yeeraan ayagoo 200 oo nina intay qoryaha ka urursadaan bay dhahayeen orda iska taga intay rabaan way ka dilanayeen marka waxaad ku garan kartaa marka malaha wadna ay ku dagaalanto awood way leeyihiin oo farabadni way leeyihiin oo shacabkoodu naftirkooda 90% waxay ka haystaan taageero ay ka haystaan hase ahaatee waxa weeye waa dad u nugul xabadda iyo dagaalka u nugul weeye marka dagaalkoodu waa socdaa ciidamada liyu booliska ayaa la sheegay inay dad shacab ay xasuuqeen ay ku soo eedeeyeen hase ahaatee dagaalka u dhaxeeya ee ciidamada liyu booliska ay qaybta ka yihiin guulo waaweyn ayaa la taaban karay ka gaadheen baa leeydi goobo badan ayaa laga qabsaday saldhigyo waaweyn ayaa laga qabsaday maalin dhaweyd bay meel soo yarsa sawireen oo ciidamada jabhadda xoreynta Oromia ay dhaheen waan la wareegnay ciidamada liyu booliska dawladdeegaanka socday baan xasuuqnay kan baan sameynay hase ahaatee saliiraad meel ay dhaceen baa la garan waayay oo wax xaqiiqa looma helin dagaalka wali waa socdaa ciidamada liyu booliska iyo ciidamada Sidama ciidamada waxa weeye militariga dalka Ethiopia ayagoo isku garaba ay ka dagaalamayaan ururada mucaaradka baaqiya ayaa loo jeediyay in ciidamada liyu booliska iyo kuwanba ay howlgaladan ay meesha ka bilowdo dawladda federaalka ay ka baxdo hase ahaatee dawladdu go'aankeeda wali way sii wadataa dhinaca kale waxaan dib u xusuusino waxa weeye dhageystayaasheena
deegaanka canfarta waxaa ka dhacay wax aan horay loo arag ayaa ka dhacay isagana magaalada barxaale oo degmo ah oo ka tirsan deegaanka canfarta TPLFna waayihii dambe ay soo rogo celiyeen bishii 1 January wixii ka dambeeyay ay gacanta ku hayeen haddana ay iskaga bixeen waxaa lagu arkay waxaan weligeed aan lagu arag dalka Itoobiya ayaa lagu arkay oo ah iyadoo tii axmaaradii laga yaabanaa oo qalbiga dadka bini'aadanimada ay ku jirto ay walaac iyo ay ku beertay cabsi iyo khalkhal ay ku beertay wixii halkaasi ka dhaco deegaanka axmaarada iyo Tigray way isku haystaan ay ka dhacay haddana tan waxaa lagu arkay waxaan iyadana la yaab ah ayaa lagu arkay ilmo yar ah oo ciyaal ah oo yar ah 5 jiro iyo haweeney qaarkood oo mul markii la eegay oo dib loo taariikhda loo fiiriyay micnaha loo fiiriyay dadka dad la yaqaanay ayaa intii meel la iskugu keenay oo 100 iyo waxa yaa waxa weeye yaa dhag qaarkood silig baa lagu cijay baa leeyahay meedka hawaalay haddana laba xabaalin axmaaradu waxay sameeyeen iyagoo nool bay intay soo ururiyeen yay meel ku gureen bay carrada dusha kaga rogeen oo dad saa ku nafceen laakiin kuwan maysan xabaalin meedkeedu baa waxa weeye dhurwaaga iyo dawacada ayaa qayb ka cuncunay ilmo yana waxaad u maanaysaa caloosha laga soo siibtay sidiisina ah marka waxa Itoobiya ka socda wax la arkay oo la maqlay maaha waxaan marka dhihi lahaa Soomaalida deegaanka Soomaalidu ha isku tashadaan hana ka go'an Itoobiya aad iyo aad ba maasantay waxaa jiro Santiago ayadana dhanka kale to magaalada Gondar waxa ka socda wali xasuuqi loo geysanay muslimiinta ku dhaqan deegaankaasi oo ay xasuuqayeen ururkan sharci darrada ay dawladda federaalka Itoobiya ku tilmaantay isla markaana dhanka kalena taageero ka haysta maamulka axmaarada ururkan Faano ayaa wali halkaasi xasuuq ka wado dhammaan ummadda muslimiinta meel ay joogaanba waxa laga codsanayaa inay u soo duceeyaan dadkan lagu xasuuqayo deegaanka Gondar ee muslimiinta iyo sidoo kale to dhammaan daafaca caalamka sida Falastiin dadka lagu xasuuqay ayagana in ay wixii duco karana ay halkan ugu soo duceeyaan dawadayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijyo gaar ah ayaan ka samayn doonaa xasuuqa lagu samaynayo walaalehen reer Falastiin iyo sidoo kale to dhammaanba caalamka dadka muslimiinta ee ku dulma dawadayaal aad iyo aad u mahadsantihiin intaan barnaamijkan kan xiga aan ku kulmi doono waxay naga